habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada wararka maanta ee Somali Channel waxaana ugu waaweyn Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia oo sheegay inuu kala dhexdhexaadinayo Soomaaliya iyo Kenya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo madaxda dawladda ku eedeeyay inay qorsheynayaan dagaal ka dhan ah Galmudug iyo Jubbaland khilaaf salka ku haya xirnaanshiyaha Mukhtaar Robo oo soo kala dhexgalay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi nin la sheegay inuu dili lahaa ama uu dili rabay Uhuru Kenyatta oo la qabtay Amisom oo laga saarayo 1,000 askari kuwooda ka jooga gudaha dalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Khayre oo maanta safar hore loo shaacin ugu baxay dalka Qatar mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay oo gaalkacyo u tagay dil halkaasi xalay loogu geystay sakaalka iyagoo ka tirsanaa daadad ku dhuftay deegaano ka tirsan gobolka Nugaal faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Bay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqlaysaan wararka Somali Channel markana wararkii oo dhan aan ku bilownaa Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay khilaafka soo rogaal celiyay ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo wareysi gaar ah siiyay VOA laanteeda afka Amhariga ayaa mar uu ka hadlayay xaaladaha dalkiisa kadib waxa uu soo hadal qaaday khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya wuxuuna sheegay inay dhexdhexaadin doonaan Ethiopia, South Sudan iyo Eritrea mana uusan sheegin waqtiga ay bilaabayaan khilaaf la sheegay inuu salka ku hayo xirnaanshiyaha Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur ayaa waxa lagu waramayaa inuu soo kala dhexgalay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ninka la yiraahdo Cabdilcaziz Xasan Maxamed Lafdagaran ee sawirkiisa aragtaan iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Cabdulqaadir Shariif Sheekuna Maye khilaafka ayaa waxa la sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed uu ka dalbaday madaxweynaha Koonfur Galbeed in uu soo daayo Mukhtaar Robo oo muddo dhowr bilood xiran madaxweyne Cabdilcaziz Lafdagaran ayaa lagu waramayaa in uu Lafdagaran ku wargeliyay inuusan isagu ka dambeyn xarigaasi Mukhtaar Robo ayaana markii la soo xirayay kamid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka waatan Lafdagaran hayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah siyaasi aad u mucaarada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay qorsheynayaan dagaal ka dhan ah maamulada Jubbaland iyo Galmudug Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu tusaale u soo qaatay kulankii madaxweynaha Soomaaliya oo dalka Sacuudi Carabiya kula yeeshay Ra'iisul Wasaaraha Qatar iyo sidoo kale safar maanta Ra'iisul Wasaare Khayre ugu baxay dalka Qatar kaasi oo uu sheegay in ay ka doonayaan dhaqaalihii lagu dagaalami lahaa sida uu sheegay maamulada Jubbaland iyo Galmudug Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayna maanta waxay u safreen dalka Qatar halkaasi oo lagu soo waramayo inay kulan kula qaadanayaan madaxda ugu sareysa dalkaasi Qatar iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeya xiriir saaxiibtinimo waxaana Qatar ay Soomaaliya ka taageertaa dhanka dhaqaalaha iyadoo la tilmaamayo in arrimahaasi waa dhanka dhaqaalaha ay Ra'iisul Wasaare Khayre madaxda Qatar kala soo hadlayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya booliiska dalkaasi ayaa waxay ku qabteen nin la sheegay inuu ka tirsanaa Al-Shabaab isla markaana magaciisa aadan ay ku sheegeen kaasi oo qorsheynayay in uu dil u geysto madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ninka la qabtay maanta oo Sabti ah ayaa isku dayay inuu shalay galo garoonka Narok halkaasi oo maanta lagu qabanayo xuska maalinta Madaraka Day ee Kenya lagu xuseeyay booliiska Kenya ayaana gacanta ku haya ninkaasi la qabtay maantana mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa Gaalkacyo waxa uu ku qaabilay madax ka socotay hay'adda UNOCHA waa qaramada midoobay kuwaas oo Gaalkacyo u tagay arrimo la xiriira tacsida marxuum Maxamed Cabdi Khayre victim ama fiimta loo yaqaano kaasi oo xalay lagu dilay Koonfurta Gaalkacyo mas'uulka xalay la dilay ayaana qaramada midoobay kala shaqeynay dhanka ammaanka magaaladaasi sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan Gaalkacyo ayaana lagu dilay oo ammaankeeda maalmahan si xumaanayo askarta Amisom ee ku sugan gudaha Soomaaliya isla markaana muddada 10 sano ka badan ka howlgalaya ayaa markana la sheegayaa in laga dhimayo 1,000 askari qaraarkaasina waxaa gaaray oo soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo isku raacay waxa ay ku dhawaaqeen in 1,000 askari laga saarayo gudaha Soomaaliya oo Amisom ka tirsan si ay yiraahdeen loo dardargeliyo tababarka ciidamada militariga Soomaaliya sidii ay xoogga dalka Soomaaliyeed wala wareegi lahaayeen howlgalka Amisom ay gudaha dalka ka wadaan gobolka Bay gaar ahaan degmada la yiraahdo Bardaale iyo deegaano kale saacadii la soo dhaafay weerar saf ballaaran ah ayaa xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidan
oo deegaanada gobolka Bay ku yaala degmada Bardaale saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan Ethiopia iyo waa askar ka tirsan Ethiopia sidoo kale kuwa militariga Soomaaliya ayay shabaabku weerarka ku qaadeen waxaana la soo warinayay in dhimasho dhaawac ay jirto inkasta oo maamulka mar wax laga weydiiyo ka gaabsaday inay khasaaro jiro halkaasi oo ayagu guul ay sheegteen gobolka Nugaalna deegaano dhowr ah ayaa lagu soo waramayaa in daadadku ay ku dhufteen kadib roob xoog leh oo halkaasi ka daay Sinojifi deegaano kale oo Garowe u dhow ayaa daadadku si aad ah u saameeyeen halkaasina waxaa la soo waramayaa in khasaare nafeed oo jiro oo dhowr caruur ahba daadadka iyo biyihii roobka kale lagu laayahay sidoo kale burbur hantideed baa jira oo wadooyin dhowr ah ayaa lagu waramayaa in daadadku ay burburiyeen arrintan waxay imaanaysaa iyadoo maamulka Puntland ay soo saarayeen digniino ku aadan halka daadadku ay ku dhuftaan ee deegaanada Puntland ka tirsan guud ahaan wararkii waa naga intaas nabadgelyo subscribe haddii aad hore u saarin saar saaxiib